gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle maamulka Khaatumo Maxamuud Nadiif Muuse xildhibaano oo qaali xubno kale oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay xafiiska golaha deegaanka maamulka Khaatumo oo magaalada Buuhoodle ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen xafiiska xisbi siyaasadeedka ka ah ee maamulka Puntland uu ka furanayo magaalada Buuhoodle iyo sidoo kale waxay eedeymo u soo jeediyeen madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa iskani waa xafiiska golaha deegaanka maamulka Khaatumo hawshan ka hadlayna waxa weeye damiye iyo waxa uu Buuhoodle uu horeyna uga qudbadeeyay haddana uu ilowsan yahay damiye horey wuxuu Buuhoodle diyaaradihii coronavirus-ka dawladda federaalka Soomaaliyeed noo soo dirtay ee ay dadka aan cidina u maqnayn ee masaakiinta aan cidina wax u hayn ay ugu deeqday watuulaha Soomaaliland may la hadasho وتبوه الديارة كسر دقياني تي دمية سلالها نك الدمية اللي يبذل من كاي إنه ما أنت هدنا إلهه يضح النجرة واحتر وتريس كده أنتوا صادر حلبانين ولا في سيجا صفرة تما مركه هو عليه وسومال لك شيء يمساعده أرد تأسيسه بالله يسوع آخرية بقى ماشي ولها حقبتين Soomaaliland ka hadasho diyaaradaha Buuhoodle ka digaya maanta haddana inuu ilaa xafiisay iga fura horta waa nasiib darro Buuhoodle waa Khaatumo abtirsiinyahay kor uga sii kacaysan oo Soomaali wax kale oo ka shaqeeya ma jiro Khaatumo iyo Soomaaliyana looma dhaxeeyo Buuhoodle Puntland teedii bay ku filan laadahay wata shalayna uu kii sharci dejinta ay isku baqtiisnaayeen maanta ku xigeenkii ay sayaan marka waxaan leeyahay war halkan waa meel Soomaaliyeed Somaliland tad ku dacwoonaysan male Khaatumo leh Soomaaliyana dawladda Soomaaliyeed noo soo gurmatina waxaan waa u mahadnaqaynaa waxaan nooleynaa inta kaliya iyo gurmadkiinu nagaga yaqaan dadkan cid kale sugi maayo cid kalena male adna waxaan ku leenahay دمشق نمك الحلبانات دينا ونمن مقالة أول شيء ومقالة أول شيء أو ديو جورجو دي بيمادين بس هي مادين نمن دمشق أنت فضقنا اللي كنت هاجنت هيجي لفت ودارك نكون مدح قضية ودو حابة دون تهدي ألقى أفك الدورة هر بيت تجي ساعة حيلته هيجي لفت أنت حارب سيون كون نكون يسوين أنك نلقي شوبيان وإذا أمن جود الدليل وجدت تسيرة مركا يجي نحاول نهدي ومقالة دي مية سكتش هو دبلان كتوبة حفيسيدنا الفريسانا كو حقبت بكوريين الفرطان حسبيدا أنجرو وكشقين يبوه الله كفريسانا يا إذا كلفتينا لين حسابتي إنك خلدنت هايلة أنا وما أرجنا إنه صوت لا يويل الجرجو دي يمي يا نو أرجنا إلى أين يلاه الحفيسيان الدولنا أي لا هاي بضلين يعني كفرينا intii hore waxaan moodaynay wiilal gurigoodii yimi waana soo dhaweynay runtii waxaan leenahay galay ka shahaadanayay Buuhoodle waa kii dafiray waa kii diyaaradihii u soo degayay xanuunka qalabkeedii u waday ka xumaa ee lahaa Somaliland ma la hadasho waanu ka sugaynaa waanu ku garab taaganahay ninkii Soomaali nacab ee dawlad Soomaaliyeed aan rabin hadduu Kismaayo joogo iyo hadduu Beled Xaawo joogo iyo hadduu Baydhabo joogo iyo hadduu Hargeysa joogo annaguna ma rabno mana dhacayso dawladda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa inay cadaaladda ku dadaasho oo sharciga ay ku dadaasho iyo cadaaladda oo dulmiga علي محمود حسن 40 كالسن Buuhoodle